waa tahay daawadayaal isla wararkii Jabuuti ayaynu ku jirnaa haatana waxa khadka si toos ah ugu jira Sheikh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo kamid ah culimada waaweyn ee wadankaasi Jabuuti isla markaasna kamid ah culimada sida weyn u mucaarada xukuumadda wadankaasi Jabuuti oo hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu si toos ah ugu jira khadka wadanka Canada. Sheikh marka hore ku soo dhawow telefishinka Home Cable marka labaadna bal waxaad faahfaahin naga siisaa waxyaabaha ku dhaliilaysaan xukuumadda wadanka Jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا واد ما حسنتهاي أديكا iyo telefishinka iyo dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta dunida naga dhageysanayaan aad bay u mahadsan yihiin walaal waxa weeye aniga oo kala soo hadlaya xafiiskayga Horizon la yiraahdo ku yaala magaalada Ottawa waxaan ku leeyahay ma hadda kadib aad baan ugu faraxsanahay inaan idaacadan aadka ugu muhiimka ah ka hadlo amba telefishinkan aadka ugu muhiimka ummadda Soomaaliyeed waxa weeye walaal marka hore waxaan jeclahay inaan tilmaamo Djibouti waa dal yar oo ku yaala saad garanaysid bariga Afrika amba geeska Afrika waa dad yar oo aad u tiro yar oo aan gaarin 1 milyan waxa laga yaabaa bulshooyinka magaalada Hargeysa degan inay ka badan tahay dhammaan jamhuuriyadda Djibouti waxa degan oo dhan arinta saddexaad waa dal dhaqaalihiisu oo aad u hooseeyo laakiin xoolo aad u fara badan oo dalka soo galay inta marka laga bilaabo 2001 ilaa iyo maanta arinta afaraad waa dal dadka degani ay yihiin dad nabadda jecel deganaanshaha jecel dad mucaaradnimadooduna si ilbaxnimo u socoto gacan ka hadal aan lahayn weeyaan marka intaas kadib marka aan tilmaamo waxa aan nidaamkan dalka Djibouti maamula aan ku diidanahay oo u sheegnay annaka iyo aqoonyahan iyo culimo fara badan 2001 waxaan u qornay 2011 baan u jeedaa waxaan u qornay waraaqad aba risaalad baan u dirnay aan ku saxeexnay 8 nin waxaan ku dhahnay 4 arrimood oo wadanka gudihiisa iyo 3 arrimood oo dibadda ah inuu qabto isaga oo iska ilaalinaya in dalkan uu tago meel aan jeclayn oo ah isku dhac shacbi inuu la dhicin annagu maan akhrinayn daqiiqada iyo maaragtay ayaamahaas waxaan akhrinaynay sida ay wax u socdaan mustaqbalka inay iman doonto isku dhac maadaama aan aqoonyahan iyo culimo nahay waxaan akhrinaynay waxa loo yaqaan shariicada fiqhul ma'aalaat arrimuhu halkii ku gabagabeysanayaan amba cilmiga maaragtay istiraatiijiyadda la yiraahdo arrimuhu halkay aadayaan beritoole taas baan ka digaynay uu noo soo jawaabay madaxweynuhu wuxuu noo soo qoray waraaqadii aan qornay mid la mid ah waxaan jawaab ay ku jirto jawaabtaas oo ahayd waxa ku nooshiin meel kale oo ahayn Djibouti marka anagu waxaan ku diidanahay oo tilmaamnay waxa weeyaan ilaa maanta aan diidanahay waa arrimaha soo socda waa kow in laba shay ay isku tageen oo aan in la kala qaadaa labada shay waxa weeye waa maamulka iyo xoolaha in lagu xireeyay guri quraate xoolihii dalku lahaa iyo maamulkii dalku lahaa baarlamanku waa shakli waa suurad waa taswiir maxaan ku dhahdaa maxkamaddu waa taswiir waxa dhan waxa laga maamulaa hal guri xoolaha dalka gaar ahaan xoolaha ka yimaada ciidamadan adduunyada laga soo ururiyay dalka lagu soo ururiyay oo niyadna ra'yi siyaasadeed ka leenahay in ay xoolaha oo dhanna uu isagu hayo oo aynan arag sida uu shalay sheegay wasiir dawladda maaragtay ka tagay 2013 waxa uu yiri dhammaan lacagtaasi hatta kullerkeega midabkeega lama arko waxay tagtaa guriga madaxweynaha marka taas waa ta ugu horeysay diidanahay waa waxa loo yaqaan isku keenka xoolaha iyo maamulka arinta labaad in diidanahay waxa weeye maamul urursan oo ku urursan xaas ku urursan family ku urursan maaha reer qabiil maaha reer soke iyo ku urursan tahay taana waan diidanahay arinta saddexaad in diidanahay waxa weeye caburaad lagu hayo aqoonyahanka culumada dadka maanka furan xuquuqul insaanka u dirarka gobonimada axzaabta xorta wadanka waxba kama jiraan amba ani ila jir amba makaankaagu waa meel kale arintaasina waa ka horjeednaa waxaan kaloo ka horjeednaa warbaahin la'aan dalka ka maqan oo hal television baa jira hal raadiyo baa jira hal journal baa dalka inta le ka soo baxa marka waxa taasina waan kaga horjeednaa waxaan kale oo kaga horjeednaa waxa weeye xabsiga weyn ee Djibouti ka dhisan ee magaciisa la dhado jamhuuriyadda Djibouti
xabsi hawadu u furan tahay samadu u furan tahay dadku ay ku dhex jiraan saddex shay baana la adeegsadaa kow waxaa la adeegsadaa in lagu xidho oo xabsiga ka daran lagu geeyo sida inanka fu'aad ambase in maaragtay mishaarka lagaa gooyo oo lagaa dhigo qof aan waxba haysan arsaaqadiina dowladda gacanta ku dhigtay arrinta saddexaad waxay gaadhaa in lagu dilo si maaragtay moral ah oo waraaqadaha dalka aad u dhalatay lagaa qaado oo lagaa dhigo qof aan socod lahayn haddaad dibadda tagtayna soo noqon karin haddaad gudaha ku jirtidna aan bixi karin waxaasaan kaga horjeednaa nidaamkan jabuuti ka jira adigoo mahadsan timekaasi aynu usoo koobannana inoo soo koob waxaan ku weydiiyey dadka intiina badan mucaaradada ku haya xukuumadda jabuuti dalka dibaddiisa ayaad joogtaan caruurihiinni wadamo nabdoon ayaa geysateen haddii uu qalalaasa ka dhaco jabuutina dhibteeda waa la arkay wadamadii hore uga dhacay qalalaasuhu marka miyaan la odhan karin intaad caruurtiinnii wadamo nabdoon geysateen ayaa doonaysaan inaad qastaan gudaha waddanka jabuuti iyo nabadda جزاك الله خيرته وسؤال أي كينان ضدك جودها جوجاي قفك ضلك إياك ساري سؤال شو تاويان ضلكن إياك ساري ما ذا أقبح حي أديك أور ربط ضلك إنا كبحدي وما يويان ضلكن ولا ساري وحن لقى ساري إنا هذا النولان أو لقوا هذا من نولان كرتيد أنا جا واحد عادي لبدي يكون يشنت مارت شنتي خطبة أنا مساجد كحمودي كآخرية بلاقي جوجية خطبتي labo waxaa la yiri shaqadii aan joogay oo ahayd wasaaradda awqaafta saddex waxaa la keenay kadib 4 sano mishaarkaygii in laga gooyo xaaskayga laga gooyo shaqadii laga yiri xaaskayga markaas waxa weeye waxaas oo dhan waxa loo sameeyaa inaad qaadid talaabadan ay dawladdu ay rabto marka anigu ciyaalkayga jaamicadan la doontay oo geeyay waxaan ku talagalay in aan noqdo baasaboorkaygii baa laga qaaday oo ilaa iyo imika ku xaniban سفارة أنا كلنا هاي واشنطن نيكا ظاهر أحمد فاحنا هذا حزب أم أرد حكومة وهالجماوينا وحويان سيدا سكة ضريبة الله قالي كديبنا مركو ضلكو صلى الله عليه حبسي بسوغا مركا وحويان تاسوا مدكوبات ضد مجرو دل كيسا يدول كيسا وقتكيا يساقو جعل ما أنت أدونك وحانو جعل هاي إنا كنا ولا جيبوتي أنو قاجونيا لكن حرة مركاسي دل كيغانا saacad kasti oon ii ogolaato inaan ku noqon karo waan noqonaya taasi waa mid koobaad weeye ubadka aan dhalay inankaygu shalay toolu hadlayay wuxuu diyaar u yahay inuu ka dhaadhaco Jabuuti uu dalkiisa tago uu ka halgamo waxa weeyaan taasi waa mid koobaad weeye midda labaad ee sheegayna waxa weeye oo muhiimka ah annaku ma rabno in dalkan uu galo dagaal eeg dadka Soomaalidu waxay nagu hadidaan Soomaaliya burburtay Soomaaliya oo kale ha noqonina taasi waa hadidaad weeye adduunka waxaa jira dhakaa jirta maskax baa jirta annaku ma rabno Jabuuti in ay wax noqoto mana noqon karaysa Jabuuti kama dhigno inay u fadhiyaan maaha jimciyaad urur khayriya oo nala fadhiya maaha ciidamada reer galbeedku ma ogolaanayaan inay ka dhacdo dagaal Jabuuti gudaheega annakuna ma ogolino dagaal ka dhaco laakiin waxaanan ogolaanayn inaan xurriyadayada karaamadayada sharaftidayada ciziga ilaahayna siiyo inaan gadanno mid kale aan kugu darayaa marka aan Yurub imanay oo Mareykan imanay oo Canada imanay waxaan dareenay qofka bini aadanka inuuna ahayn physics uu yahay moral taaba noo sii siyaaday marka moral dadku inay indhayeeshaan dibadda u baxaan waa muhiim dibad wuxuu keenayaa inaad tahay qof kale oo xor ah oo dawladda dhan ee culus ee Mareykanka shalay waxaan ku mudaharaadayna safaaradeeda Trump baan ka lahayn waad waalan tahay qofna nama xidhayo Trudeau baan la hadalnaa annagoo ka iman Afrika waxaan ka oranaa sidaa ma ogolin qofna nama xidhayo sidee dalkaagii lagugu xidhi sidee baa fu'aad maanta ay u gali qaash iyo uskag iyo uu la noolaan cayayaan sidee baa saaka cabdiraxmaan barkhad oo mufakkir ah oo caalim ah oo doctora inta loogu yeedha xabsiga dhexe ma xafiiska maaragtay ninka booliska u hanjabay uu ku yidhi waxa kugu dhaca adaa hadhow tolka cala cali doona waxa weeyaan waxaas oo dhani wuxuu ku tusayaa in dalkan dadka laga caydsanayo oo laga eriyanayo marka taas baan kaga jawaabayaa su'aashaadii walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan suleymaan sheekh bashiir oo ku sugan waddankaasi Canada oo si toos ay ugu waramayay aad baad u mahadsantahay sheekh إنك مضى إن شاء الله جزاكم الله خير